بسم الله الرحمن الرحيم waxaa soo idlaaday maalintii labaad ee shirka golaha wada tashiga qaran ee Soomaaliyeed ee arrimaha doorashooyinka kaasoo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble shirkan oo ay ka qayb galayeen madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya madaxweynaha Puntland madaxweynaha Jubbaland madaxweynaha Galmudug madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo madaxweynaha Hirshabelle sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa runtii maanta waxa uu ahaa mid yididiilo leh marka la fiiriyo sida madaxda furfurnaanta leh ay uga munaaqashoonayeen arrimaha taagan runtii waxa aad maanta loo guda galay ka hadlidda qodobadii humaaga uu ka jiray ee turxan bixinta u baahnaa la xiriiray ama marka ay timaado arrimaha doorashooyinka madaxdu si furan ayay maaragtay u bilaabeen inay arrimahaasi ka hadlaan marka la fiiriyana shirka waxa la oran karaa aad buu uga horumarsanaa uga wanaagsanaa marka la barbar dhigo shalay sidii uu ku bilowday waxaa la isku soo noqon doonaa haddii eedmo shirku way sii socon doonaan maalinta berri ayaa la isku imaanayaa oo madaxdu ay sii wadi doonaan shirkooda laakiin markaad fiiriso sida hadda ay madaxdu isula jaan qaaday iyo sida ay maaragtay arrimaha muhiimka ay u kala qaadanayaan waxaad moodaa in horumar weyn uu jiro waxaana la rajaynayaa in ugu dambeyntii natiijo wanaagsan ay shirkan ka soo baxdo laakiin madaxdu hadda waxa ay xoogga saarayaan in ay maaragtay turxaan bixiyaan oo qodob u qaadaan qodobadii maaragtay horay ay cabashadu ama tabashadu ugu jirtay waxaana la filayaa marka ay madaxdu isla soo dhameeyaan in warmurtiyeed rasmi uu ka soo bixi doono